oo xalay gudoomiyaha gobolka u yeeray dhammaan madaxda gobolka oo dhan haday tahay madaxda sare gobolka iyo dhammaan degmooyinka ujeedka maanta wuxuu ahaa kulanku saddex waxyaabood laga hadlayay arinta kood waxay xaaladda amniga magaalada maadaama maalmahan ay dhacayeen qarax iyo dhacayeen in la isla xisaabtamo la weydiiyo sababta wuxuu dhacayaan xamar meel walba wax ka dhacayaan waa degmadana gudoomiye degmo ayaa gudoomiye ka ah haday jirto wada shaqayn la'aan ayaga dhexdooda in la xaqiijiyo si loo ogaado sababta keenaysa in waxyaabahaasi dhacaan ayaa maanta aad iyo aad looga hadlayay arrinkaas waa la isku afgartay mas'uuliyadda degmooyinku qaabay isugu xiran yihiin baa jirta in la isku xirmo oo la wada shaqeeyo oo cadowga ummadda raba inay dilaan shabaabka balaayada iyo qaraxa la daba jooga in meel looga soo wada jeesto qodob maanta aad iyo aad looga hadlay ahayd waxa kale aad iyo aad looga hadlay waati dhawaan lagu wareejiyay gobolka Banaadir amniga lagu wareejiyay qaabka amniga gobolka Banaadir loo sugi karo iyo istaraatiijiyadda amni iyo sida cadowgaas raba inay ummadda dilaan sida meel looga soo wada jeesan karo ayaa iyana qodob kale oo muhiim ahayd iyana aad looga hadlay qaabka amniga caasimadda loo sugi karo qorshe ballaaran ayaana laga yeeshay qodobka kale muhiima waxa weeye gobolka Banaadir wuxuu ka kooban yahay 74 waaxood 74 gudoomiye waaxa jooga waax walba waxay ka kooban tahay 4 laamood ama ka badan ama 5 laamood gudoomiye laameed baa jooga gudoomiye laameed waxa ka hooseeya darisaynta ama 10 tiriyaha oo dhamaantood ku xiran gudoomiyaha waaxda gudoomiyaha waaxdan wuxuu ku xiran yahay gudoomiyaha degmada qaabka silsiladda noocaasa ee hareerikada ah ee kala sareynta ah inay shaqadu u socoto oo sirdoonka degmooyinku shaqeeyaan oo maamulada degmooyinku shaqeeyaan oo habeen iyo maalin la rondeeyo oo cadowgaas kaliya ujeedku yahay wax dilka in la keeno wax ka duwan oo culimo u diinku hadlaan oo ummadda loo sheego waxa weeye shabaab wiil yar oo 20 jira bay waxay ku soo qanciyeen inuu isdilaan ku qanciyeen 20 jir lagu qanciyo inuu isdilo waxa weeye culimo u diinku waa inay kaalintooda kala qaataano inuu qofkaas u noolaaday ku qanciyaan waayo fikirka lagu shubayo iyo canjalada la gelinayo kaala isqarxi waa in caqli ka duwan yimaado la yiraahdo kaala noolow oo ay isdilin waxaan waa fikir waa drugs iyo balaaya lagu duraya qofka soo isugu xiro suicide-ka ama bam isugu xiro marka wacyi gelintii culimo diinkan ay muuqato oo cadowgaas yar iyo weyn looga soo wada jeesta meel oo tilaabo laga qaado oo arrimaha bulshada iyo isku imaatinka shacabka la soo celiyo iyana waxyaabaha muhiimka ah oo maanta laga hadlay kamid ahayd qodob kale oo kamid ah amniga guud ka sokow mas'uuliyiinta ku jirta xarumaha hoteelada ama degan iyana waxa loo soo jeediyay in amniga muwaadinka degan mas'uul ka yihiin ka sokow amniga banaanka iyo guud ahaan magaalada oo lamaha ammaanka mas'uul ka yihiin haddii muwaadinku hotelkaaga degan yahay oo habeenkii ku dalacayso $100 amnigiisa inaad xaqiijiso waa laga rabaa ma ahay markii qarax dhacaada ka diddo ee qofka gacmaha laga xiro sax ma marka waxaan rabnaa in amniga muwaadiniinta degan xarumaha hoteelada ee la isugu keenayo bulshada in amnigooda la xaqiijiyo in waxa weeye hubkoodii waa laga reebay hadduu bastood lahay waxa jira banaanka ku reeb oo hala soo galin haddana amnigiisa gudaha lagu ilaalin karo sax ma marka aad ma santiin guud ahaan waxaan idin rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo amniga magaaladan cid walbo oo ka qayb qaadan karta
oo waxa weeye soo sheegi karta cadowga iyo meeshuu jooga u furan tahay waa mahadsantiin